sanadii 2023 waxa uu ahaa sanad uu caalamku aad u hadalhayay waxa loo magacaabay artificial intelligence ka Soomaali ahaan waxaan filayaa in 50 ama 70% ay ahayd markii ugu horeysay ee aan maqalno AI kamaynu haysan waxa fahan ah iyo aqoon hore toona dabcan bari hore waxaan naqaanay robotics balse AI uu ka duwan yahay haddaba laga soo bilaabo xilligaas 2023 ilaa maanta way yartahay intaynu ka faa'iideysanay oo aynu ka fahanay AI-ga waxaan is oran karaa taas waxa sabab u ah in markii ugu horeysay fahmin waxa uu yahay AI-gu si xawaare leh ayuu nagu soo galay waxaanu maqalnay ChatGPT wax kasta waad weydiin kartaa waana ka jawaabayaa balse way yaray inta qori kartaa ama garan kartaa sida wax loo weydiiyo AI-ga maanta waxaynu muuqaalkan ku wadaagaynaa kuna falanqeynaynaa waxa uu yahay AI-gu sida uu shaqeeyo faa'iidooyinkiisa caqabadaha weli jira iyo waxa ka jira cabsida ay dad badan ka qabaan AI-ga taasi oo ah inuu AI-gu la wareegi doono shaqooyinkeena haddii se taasi dhacdo ma jiraan shaqooyin adag tahay in AI ama robot qabto oo fursad u noqon kara bani'aadamka ku soo dhawaada muuqaalkii maanta dhalinyaro ugu horeyn artificial intelligence waa garaad macmal ah oo gacan samays ah kaasoo loo ekeysiyay inuu qaban karo shaqooyin u baahnaa maskax bani'aadam mana ahan wax biloomay mar dhowgun ee waa process maalinba meel marayay kaasoo ka soo biloomay ikhtiraacii kombiyuutarkii ugu horeeyay dunida ee 1946 ilaa 2023 oo si buuxda loo arkay awoodda AI-ga ilaa haddana maalin kasta wax lagu samaynayaa horumarin okay sidee ayuu shaqeeyaa AI-gan maanta joogayay haddaba AI waa uu process gareeyaa xogo aad u badan si uu wax uga barto waxauna isticmaalaa algorithms si uu helo xiriirka ka dhexeeya xogahan una soo saaro natiijooyin AI-gu waxa uu aqaanaa wax lagu shubay kadibna lagu tababaray sidii uu adeegsan lahaa ugana soo saari lahaa wax macno leh in AI la tababaro oo process hawl badan wuxuuna baahan yahay in la geliyo waqti badan iyadoo ay ku xidhan tahay baaxadda laga rabo inuu AI-gaasi leekaado waxaana la isticmaalaa wax loo yaqaano machine learning oo ah habka aynu machines-ka sida AI-ga ama robotyada u siino awoodda ay wax ku baran karaan una isticmaali karaan dheetada ama xogta intaas kaleer ma tahay uma isla fahanay haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka uu AI-gu inoo keenay waxyaabaha aynu ka faa'iidinay AI-ga waxaa ka mid ah fududaynta waxa loo yaqaano self study-ga ama raadinta xogaha sidoo kale waxaa ka mid ah caawinta lagu caawiyey dadka qaba baahiyaha gaarka sida voice recognition-ka iyo turjumaadaha luqadaha waxaa sidoo kale jira shirkado badan oo AI-gu u isticmaala go'aan qaadashada iyo saadaalinta khataraha ganacsiga maadaama AI-ga uu kaydiyo xogo aad u tiro badan waxaa marar badan dhacda inuu ka khaladaad yaraado bani'aadamka waxa uu AI-gu kor u qaaday hal abuurkii iyo keenista fikrado cusub sida dhisaynada oo kale iyo waxyaabo kale oo aad u tiro badan oo faa'iido ah ayuu noo keenay intee leeg ayaad adigu maalintii isticmaashaa AI maxaad se u adeegsataa aragtidaadu waa muhiim waxaadna nagula wadaagtaa qaybta hoose ee commentiga okay iyadoo ay sidaasi jirto haddana waxaa weli taagan caqabado soo wajahaya AI-ga waxaana caqabadahaasi ugu waaweyn privacy-ga iyo personal data ama xogta shakhsiga sidee ku hubin karnaa in sistemyada AI ilaalin karaan xogaha shakhsiga waxaa sidoo kale isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka aynu ku hubin karno in AI-gu na siinayo go'aamo daahfuran oo transparent ah oo la isku halayn karo kuwani waa kilita qaar ka mid ah su'aalaha badan ee hor yaala shirkadaha waaweyn ee gacanta ugu haya horumarinta AI-ska ugu dambeyn AI-ga ma uga cabsanaynaa inuu bedeli karo shaqooyinkeena mustaqbalka dhalinta Soomaaliyeed arrinkan wuxuu ugu qaybsamay laba qayb kuwa dhahay Afrika goorta uu soo gaaray AI-gu ma dhowaa iyo kuwa aad uga cabsi qaba in AI shaqooyinkooda qabto horta arrinku labadaas wuu ka duwan yahay qoladaas hore xaqiiqada uma dhowaa waayo casrigan ama Afrika joog ama Yurub joog adduunku waa isku xidhan yahay haddii booskaagu helo AI u qaban kara shaqadaadii kuma soo dhaweysanayo ee taa maskaxda ku hay su'aasha haddaynu isku dayno inaynu uga jawaabno sida ugu habboon ee fikirkayga ahi waxa weeye in mustaqbalka AI-gu qaban doono shaqooyinka qaar balse ma ahan dhammaan shaqooyinka halka wax ee aad booskaa ku ilaashan karto waa inaad taqaano wax badan oo aad mar kastaba ka horeyso AI-ga shaqooyinka adag tahay in AI-gu la wareego waxaa ka mid ah xirfadaha kala duwan ee kombiyuutarka sida networking-ka programming-ka software engineering-ka hardware engineering-ka machine learning-ka iyo kuwa kale la xidhiidha haddaynu mid isku dul taagno networking-ka way adag tahay inuu AI qabto maadaama uu u baahan yahay shaqo physical ah oo si toos ah loo qabanayo waxaa si toos ah loo dejinayaa oo loola xidhayaa qalabada network-ga
waxaa si toos ah loo maamulayaa qalabada network taasina ma ahan mid AI qaban karo sidoo kale programmingka isna way adag inuu AI bedelo maadaama programmingku u baahan yahay problem solving ka weyn ka AI-ga oo real time ah sidoo kale programmers waxay si qoto dheer oo faahfaahsan u fahmayaan projectyada ay dhisayaan iyagoo qaata go'aamo ka waaweyn inta uu AI-gu qaban karo waxaa sidoo kale jirta in programmingku u baahan yahay teamwork oo marka la dhisayo projectyo waaweyn hal qof ima dhiso waxaa maamul dhaweyd soo baxay AI lagu magacaabay Devin oo la sheegay inuu bedeli doono programmerska iyo software engineerska isagoo ay sheegeen inuu dhisay project waynuna ka warhaynaa in maalin dambe aan warkiisa la maqal waxa uu dhisayna lama arag inuu ahaa project weyn iyo inuu ahaa project yar lama sheegin taas waxay ku cadaynaysaa in programmersku ay weli sii jiri doonaan balse haddii aad programmingka xiisaynayso ugu waa fursad fiican waxaadna haysataa chance aad AI ugu adeegsan karto faa'iidadaada oo uu si fiican ku caawin karo adaa master u ah sidoo kale meelaha ugu fursadaha badan maanta waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano machine learning oo ah samaynta AI-ska iyo robotics-ka waxaynu machine learning-ka kaga hadlaynaa muuqaal gaar ah inagoo sharxi doona si faahfaahsan iyo sidoo ku baran kartoba machine learning-ka muuqaalkina maanta intaas ayuu ka egyahay fadlan ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto siina sheegi karayso si uu gaaro asxaab badan mahadsanid